الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. waxaan joognaa xaruntii weyneed ee akhriska qoraalka Halkaraan waa meesha maskaxda korisa maskaxda daayirta gobolka Togdheer ee aqoontuna ku xiran tahay xisbiga waddani oo soo booqday maanta si kadisa isaga soo galay maktabada weyn ee Halkaraan oo wareysi kadib waxa wararka kamid ahaa in xisbigii kulmiye intii hore ugu ballan qaaday in uu lacag siiyo oo ku qabto tartan aqooneedka ay u qabanayeen iskuulada dhowr iyo 10 iskuul oo kamid ah gobolka ay u ballan qaadeen kadibna ay kaga baxeen kadibna markay kaga baxeen xisbiga waddani ay codsi u soo qorteen isla markiiba halkii gudoomiyaha soo galay oo isagu ballan muu qaadinay oo markiiba gacanta ka dhiibay ruuxantii Halkaraan waynu ognahay waa rugta aqoonta iyo akhriska gobolka ee maskaxdooda ma yahayn in la wareejiyo ka xisbi ahaan hadii ay beedmo wixii ka dhiman ee kale haday tahay buugaag iyo haday tahay meesha la balaariyaba anagu diyaar baan nahay lacagtan aan ku wareejinayno maanta waxa weeye waa $1300 oo ay ku fangareynayeen tartankii aqooneedkii gobolada Maxamuud Axmed Cali ka xisbi ahaan anagu diyaar baan u nahay hadii ay beedmana waxaan leenahay tartanka cid qabatay ee qarashkiisa qaaday waa xisbiga waddani aad baan u soo dhaweynaynaa Halkaraan iyo hawsha oo haysta gobolka iyo aqoonteeda iyo aragtiyeeda iyo daayirta firfircoon ee iyagu intay isku-ursadeen ka fikiray aayaha mustaqbalka dhalinyarada iyo aqoontooda waxaan ku wareejinayaa lacagtii dhan gudoomiyaha Halkaraan Mustafa xisbiga waddani runtii naadiga Halkaraan saan hore u sheegnay waa naadi dhalinyarada gobolka Togdheer iska leeyihiin magaalada Burco waa naadi ay ka faa'iideystaan dhalinyarada gobolku dadka ka tirsan iyo dadka wax ka akhrista iyo dadka ka faa'iideysta dhamaantood waa reer Burco ama waa gobolka Togdheer dadka ka faa'iideysta iyo dadka memberska ka hayman waxay isku jiraan waxa ay ku kala jiraan ay kala taageersan yihiin xisbiyada qaranka maadaama ay yihiin dad muwaadiniin dad reer Soomaaliland xuquuqdooda iyo xaqooda ay tahay inay helaan oo ay codeeyaan oo ay wax doortaan si iyaguna maalinka xiga iyaguna ay u noqdaan hogaamiyayaashii qarankan hogaamin lahaa ee looga dooran lahaa xisbiyada ay Soomaaliland samaysatay maadaama ay sidaa tahay hore maktabada waxaan u sheegnay inay gacan buuxda ka geysteen xisbiyadu ay xukuumaddu gacan ka geysatay dawladda hoose ay gacan ka geysatay dhismaha maanta joogna dawladda hoose dhistay abaal baan uga haynaa xildhibaanada golaha deegaanka oo hogaaminaya maayirku sidoo kale shirfiska ku wareegsan xukuumadda wasiir ka tirsan oo yiraahdo Cali Marreexaan ayaa shirfiska noogu wareejiyay oo isaguna maalgelintiisa lahaa buugaagtii ugu horeeyay iyo waxtarkii ugu horeeyayna waxa qayb weyn ka ahaa hogaamiyaha xisbiga waddani xisbi Cali Xaaji Xasan oo uga mahad celinayno xisbiga waddani buugaag fara badan ay dhowr jeer isaga laftirkiisu noo keenay garabka dhalinyarada heer qaran ayaa maktabada dhowr jeer yimi markasta ay imanayeen buugaagay sideen waan ka codsanaynaa xisbiyada kale ee tartamaya iyo dhalinyarada kale iyo garabadaasba inay kaalmada ay waddani garteen ee ay maktabada ay Burco dhan ka faa'iideysan soo ugu jiraan iyo gurmadka ay la soo gaaraan yaani dawladdu ku koobnaan oo kaliya dawladda hoose iyo xukuumadda inay ku koobnaato ma saddexda xisbiba way tartamayaan dhalinyarada cod bay ka doonayaan dhalinyarada xoogooda iyo waxtarkooda way u baahan yihiin marka waxaan ka codsanaynaa inay xisbiyadu sida ugu soo kala horeeyaan barbaarta aqoonta ee halka ku midaysan sida ugu soo kala horeeyaan iyo sida ugu kala badiyaan ay ugu kala codeynayaan marka xukuumadda iyo dawladda hoosena abaalka ay u gashay magaalada Burco iyo maktabadan iyo rugtanba waan u haynaa waana midaan ognahay xisbiyadana saddexda xisbiga ugu horeeyay ee kaalmay naga soo gaadho ayuu kaniya xisbiga ugu horeeyay ayuu xisbiga waddani yahay
waan ku faraxsanahay inuu xisbigii ugu horreeyay ugu soo dheereeyay ee lacag kaasha intaanu weydiisano daqiiqada gudahood buu guddoomiyahooda ugu sarreeyay murashaxiina uu daqiiqada gudahood ka jawaabo dabadeetana uu guddoomiyihii dhallinyarada xisbigaasi markiiba nagu wareejiyo aada iyo aad baan ugu faraxsanahay eedadiilo iyo rajo ayayna gelinaysaa laxa jeclo oo guddoomiyaha ahna murashaxa xisbiga wadani dhallinyarada ka leeyahay ayay nagu abuureysaa runtii waana farxad iyo dareen gaara bay u tahay reer Burco oo dhan bay farxadaas u tahay oo la qaybsanaya annagana baahidii ugu weyneyd ama maanta taagneyd ee deynka ahayd ee lanagu lahaa ee aan usii amaahnay ardaydii dugsiyada ee hortooda laga sheegay in xisbiga kulmiyuhu maalgeliyey ee hortooda laga sheegay inaanay lacagtaasina naga soo gaadhin xisbigii aanu ka filaynay inay naga soo gaadhay annagoo weliba in badan muddo badan samirnay laakiin waxaan rajeynaynaa in xisbiga wadani maadaama uu baahidaa naga fayday aan aada iyo aada ugu mahad celino waxaan leeyahay mudane aada iyo aad baad umahadsantahay waan kaaga mahad celinaynaa inaad noqoto xisbigii ugu horreeyay ee kaalmo soo gaadhsiiya maktabadda markii koowaad maaha xisbiga wadani uu wax keeno oo markii maxaan oran karaa malaa 3 jeer horena bugaag bay keenay iminkana deeqda meel soo gaarsiinay oo ahayd waliba mid deyn oo naadiga sii gariyo xisbiga kulmiye iminkana ay bixiyay xisbiga wadani oo la korno deeqda waxa ku deeqay xisbiga wadani sida hagar la'aanta ee uu nooga qayb qaatay deeq bixintii uu ka geystay maanta naadiga akhriska qoraalka kulley de waxa halkaa kaaga muuqda naadigu inkastoo iska ballaaran yahay